الحب نغمركم هنا بالود نلقاكم فحي الله مقدمكم فحي الله. أتيتم فالمدى فرح ونور البشر يغشاكم. يا شيخ أنا وأكو هذا يا دمان مجا حضورك يا أرضي جامعة يا waxaan ku leenahay soo dhawow gacmo furan baan ku soo dhaweynaa iyo qalbi furan aadna waa ugu baahnayn inaad soo booqatid oo nagu soo noqnoqotid kelimadahaagana insha Allah ta'ala aadaanan saaqiya weelo kulmi doonaan iyo qalbi arday iyo culimada oo idin mahadnaqaya iyadoo laga yaabo magaaladan muddo 30 sano ka badan inay ugu dambeysay marka labaad kelmadda mala munaasiban silay way ku tahay arday jaamacadeed waxay ku saabsanaan doontaa al-insaanu huwa al-baaxithu can al-xaqiiqa qofka bini aadamka ahi ama aadanuhu astaamihiisa uu ku muuqdo waxaa ka mid inuu yahay عدة بعد حقيقة وحقيقة الرادس هالنقطة أدونك وكلنا ليهاي هي وحيابها أدونك نحدي السيالين اسكت ضيان وحكوا قادو أما هالنقطة ما وراء الطبيعة وحي كنت المامان ميتافيزيكس كون كان يمحاك دنبايا geerida iyo noloshatan maxaa ka dambeeya taariikhda bini aadamku waxay caan ku tahay markaas inuu qofka bini aadamka yahay qof xaqiiqo raadinaya taariikh الفلسفة iyo taariikh العلوم كلها marka la isku soo duuduubo waa cidisku tafkiirku waxay ku tilmaamaan inay tahay أعلى وظائف الإدراك أما قفك بني آدم كأجرات كي سميلها وقصر رأيه إن حقيقة للرادية أنت بدن وحيد هذا نفر شيبك وحرم طاي ما انقبك قفك بني آدم كأما جرات كي سيون عافمات قبه التعقل أو التفكير يا الواقع المحسوس انت بدن waxaa isaga khaarijka ka ah daraasada uu ku sameeyo iyo xawaasta uu adeegsanaya inay saliim tahay sensational organiskiisu inay caafimaad qabaan iyo waxay ku tilmaamaan almacluumaat alawaliya ama albadihiyaat axiomiska la yidhaahdo afka gaaleedna oo ah caqliga bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray xaqaa'iq awaliya oo ay yidhaahdaan waa the basis of science and philosophy waa meesha uu ka dhaqaaqo aqoonta iyo falsafada iyo waxbaadhista dhammaanteed afartan shay ugu horeeya garaadka aadanuhu وكحيجا واقع ما وحاولنا ليقف كبني آدم كه وهذا بدأ تضو كهيو أما معلومات كلا كهيو أنت أي لاجيهين هي حواس بني آدم كمثلا أقونت بني آدم كهرمر كده أنت وجود بدن له وحكو حرين يهي أنت وحكا أركو أما وحكا مقلو يوحي لها المالا تصالح كلما إشينا إنه هرم مرينه داتا إنه هلابا بدتا أناليسيس كإنه سبعين باب بطا معلومات كبني آدم كو هلابا بطا صادر دي مثلا إن إيشو وحركته وحير إلى حد بيارك كرته وحوينا إلى حد بيارك كرته لكن آدنه أدوات قصة يستوي حسكو داية وحي إيش عادي يارك ترتي وحكا بدن إنه أرك كرو ووحن مجهرك أما ميكروسكوبسك أما وحن وحلوه إيغو
markasta uu sii bato maalan dunida caafimaadku wuxuu horu maray markuu microscope-ku soo baxay ee la arki karay bakteeriye iyo maxaa la yidhaahdaa iyo waxan yaree noolahan aanay ishu qabanaynin hore maanta aadanuhu wuxuu marayaa dee femto axmed zuwayl miyaa la yidhahdaa nigan masriga professorkan masriga ee ka mida nobel prizes-ka dunida nimankan sita waxa uu ku qaatay waxa weeyaan waa femto waa maxay waa 10 to power of 15 waxa dhici kara bay leeyihiin 1 second in 10 to power of negative 15 wax dhici kara inuu sawiri karo that means waa shaygii oo loo qaybiyey maxay balaayiin waxa ka yar reaction-ka dhici kara in la sawiri karo ama se la arki karo xagga ballaca markay noqotana aadanuhu wuxuu arkayaa wax kasta oo aqoontiisu sii badatay wax ku arko markuu weyneeyey galiilo laga soo bilaabo telescope-kiisii yaraa ee quraarada yar oo cirka u taagtay iyo maanta aqoonta ugu badan leh ee maalan astrophysics-ka waxaa la helay intii uu batay isha biniaadamku intay gaadhi karto intii la diray dayax gamceedadan cirka jooga maalan Hubble telescope-ka ugu weynee maanta ay wax ku sawiraan ee la yidhi meel sare oo saafiya oo wax badan arki karo oo dunida indhayn kara ha la geeyo si dhaata fiican loo heli karo aragga aadanaha ee waxa fog iyo waxa yar markuu sii batay waxa batay macluumaadka ama dhaatadii la helayay markaas baa waxa fududaaday analysis-kii ka dhalanayay iyo biniaadamku siduu u fakarayay ama wixii uu gaadhayay macluumaadka awaliga ahina axiomiska waxaa loo yaqaanaa ilaahay maanka biniaadamka wuxuu siiyey waxyaabaha aan proof u baahnayn hal lagu daray inay laba tahay waxa weyn iyo waxa yar inay kala weyn yihiin waa almacluumaat alawaliya bay yidhaahdaan waa badihiyaadka waxay yidhaahdaan waa waxa uu philosophy iyo science oo dhan ka bilaabmo haddaba ilaahay kitaabkiisu ama kitaabka qur-aanka ah waxyaabaha ugu badan ee uu inoogu yeedhayo waxaa ka mid ah adeegsiga caqliga iyo afkaarta iyo maanka biniaadamku uu adeegsado ha noqoto majaalka ku gaadhsiinaya ilaahay iyo rumayntiisa ama ha noqoto majaalka keensanaya dhulka iyo istikhlaafkiisa ama maamulkiisa iyo nolosha in la fudaydiyo miday doontaba ha noqotee istawgeed culimadu waxay yidhahdaan xawaali 50 mawdican 49 meelaha in ku dhadhow ayaa qur-aanka kalimatu lcaql oo weliba aan nown ahayn ee ah maxay siiqa kale gadisan afalaa tacqiluun iyo lacalakum tacqiluun iyo ay ku soo aroortay bal ilaahi subxaanahu wa tacaala duulbu wuxuu ku tilmaamaya inay naarta ku galeen oo ay leeyihin waqaaluu low kunaa nasmac aw nacqil ma kunaa fi asxaabi saciid haddaanu si fiican maqalka ama caqliga ama garaadka aan u adeegsan kari lahayn maana noqoneen dadka naarta gala qur-aanku in badan buu wuxuu ka warramaya maalan kalimatu lfikr iyo mushtaqaadkeeda xawaali 18 jeer bay ku soo aroortay waxa uu qur-aanku ka warramayaa in badan majaalaadkaasi caqliga burhaanta u baahan inaan wax la aqbalin in burhaan la hayo mooyaane burhaanku waa proof waa caddayn xataa fi akhtar qadiya islaamku uu rumaysay am ittakhaduu min duunihi aaliha qul haatuu burhaanakum hada dikru man maciya wadikru man qabli bal akharuhum laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun ba ilaahay ilaahay lam ittakhaduu min duunihi aaliha ilaahay sukadiima ilaahayay yeesheen qadiyadu sheegasho maaha baa ilaahay leeyahay qul haatuu burhaanakum daliilkeena baa la leeyahay caddayn wax caddaynaya waxaa marteen waddadaa marteen caddayn u keensada hada dikru man maciya wadikru man qabli bal akharuhum laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun idan islaamka marka la eego diin kula midii ma jirto xagga boorinta caqliga iyo malakaatu tafkiir awoodaha fikirka iyo mawaahib almuqaarana walmuxaasaba alcaqliya
in qofka kor loo qaado waxyaabaha ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala ee keensanaya inuu wax isbarbar dhigo oo analysis uu sameeyo uu wax taxliilin karo uu dhirindhirin karo ilaa iyo xaqaa'iqda ka gaadhayo sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay inna fii khalqi الsamaawaati wاlard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلهي وحينو الشيء سبحانه وتعالى أبورك السموينك يرلوك هبينك يمالنت اسكي قد قودة وحي آيات على مدى وسوين وحلقو قرطاه يوسوين لأولي الألباب إلهي لذوي العقول ضدك قرات كله ضدك عقل كله سادردد با إلهي وحلي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كو عقل كله وكو التحليلات كود النتيجة أي دلان إن الرب قد حصان نرشوا الدمان تيدور دن يقوم حي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض cirkani iyo dhulkan iyo xaggu ka yimi iyo jiritaanka ka fakaraya oo natiijada gaadhayaan ay tahay rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adab an-nar hadaba umadu inay fakari weydo al-ummiya al-fikriya ayaa ka khatarsan ummiyat al-kitaba waxa qoraalaan literacy-ga ay dadku wax qorin waxa ka liidata inaanay dadku maanka si fiican u isticmaalin waayo qofka si fiican aan maanka u isticmaalini ama ummadda aan maankeeda si wanaagsan u isticmaalini waxay noqonaysaa ummad tabaca oo la gumaysto haddaba ayuha alaxiba ardada jaamacaduhu ama jaamacadda dadka jooga maaha weel la dhaamiyo weel wax lagu shubto maaha oo la dhaamiyo ama meel macluumaadka lagu kanziyo lagu istoodgareeyo qura ma aha ee waxa tahay insaan conscious insaan caqli iyo maskax iyo maan iyo aragti iyo garaad leh وإن لنا وأعلى خصائص الإنسانية هذه جامعة كأول وحلا دامية دوقف كبني آدم كويهاي أو مركي الله دارنا سوء عليا ده سيدية ده يعتل ده يكون إنه خطب نابا وأنت تقاطع إنك بدن بالغاتين كريا ولا دامين كريا لكن وحلقوا شيء waxa jaamacad loo sameeyay waxa weeyaan waxa lagu sheego inaad analyze gareyn karto baari kartid maxaa xaq maxaa baatila waxani waa araa bini aadam bay u badan yihiin waa aqli bini aadam wax ka soo fulay aqli bini aadam wax ka soo fulay waa tajaaribti min aadam ila maanta wixii laga hayay cid gaar ah leeyahay ma jirto aadanahu ka dhaxeeya waa heritage waa dhaxal aadanuhu leeyahay oo kala dhaxlay qofba in ku daray ama in soo raaciyay field ku doona nolosha ha noqdo waxaad u baahan tahay markaasi markaad wax xogaato inaad wax غربله ku sameey inaad wax baari kartid ilaa intaad ka gaari kartid natiij xaqa ama si aad tadwiirin kartid wixii bini aadamku hore u hayaad hore u qaadi kartid qofka bini aadamku wuxuu dhashaa isagoo aan macluumaad wadanin wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون وحاوركم ويدين كسو بخدان با ربي ليه idinka wax ogeyn لكن ربي wuxuu idin yeelay ادوات الفكر ادوات التعقل waxa wax lagu garto waxyaaba garaadka kaalmeeya oo ah arag iyo maqal iyo qulubba waxa layna faray waxaanad aqoon u lahayn inaad raacin dameeridaan raacday inaad noqonin ولا تقف ما ليس لك به علم نبي محمد عليه الصلاة والسلام وآدنها قفك ربك الدورتية وفي عقل بدنها لكن مقياس آدنها عادي كاكو يقنو يا إلهي وحكولي ولا تقف ما ليس لك به علم أقوم وحاند الهين الراعن با إلهي سبحانه وتعالى وحاند حقائق دي سعودان إنه هذا أقوم الهين الراعن
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحبوا الويدين دون أبا رب إليه سبحانه وتعالى هذا erayada tirada badan lee ilaahay kitaabkiisa ku yaala ama fikriya ama tadabbura ama tabassura ama nadriya ama i'tibaara ama taaqula oo erayada qaarkood 100 goor ku soo arooreen erayada marka la isku daro dhowr 100 gaadhaya waxa rabbi uu nagala hadlayaa inaynu garaadka isticmaalno maanka isticmaalno aqliga isticmaalno mawaahibta rabbi ina siiyay giftska waxyaabaha rabbi subxaanahu wa tacaala deeqaha uu inoogu deeqay inugu galladeeyey aynu kaga gadisanay noolaha kale ee dhulka korkiisa jooga inaynu adeegsano ayna noqonin dameeridhaan raacday waxaasi waxay ku gaadhsiinayaan haddaad si fiican u adeegsato ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala iyo xaqa raacitaankiisa iyo sunanka rabbi u dhigay noloshu inay ku socoto ظواهرته كونية هديتها يونيفرس كان يسوع شقية هديتها السنن كإلهي ودقي نلش بني آدم كأي قابك وشقية نسو وحن ترى بدن لا إنه آرتس كبت المامنا أما سوسيولوجي هالنقطة ما محل ده سياسة النقطة ما دقالها النقطة ما وحاس آدنا هي نلش يسحكم هالنقطة وحيابها السيفيلايزيشن اسكي حضارتها أبورة هالنقطة حضارته سيدي الدمان أما الإسمان أممكو سيدي وقعان أما الدمان وحاصر لمي وحاي كردشان وحال ينوت المامي قرآنك وكور رميه إن مان كلا أديك سدو والله بيه صدق المبادئ مبادئ ده لقاطن يا موحى لغو ما يا محاربة صدق الأفكار صدق المعتقدات إنه قفك بني آدم كيسكه بيه مصادر العلم أقنته حقيقة ماذا أقنته والله مش يقول الشيء سد حد الدنيا أقوني ما تشلو والله مش يقولها أيوة هذا نو بعضها إما إنه يهي إلهي وركيمي ووحيه كلام الله هي أما إنه يهي مفعولات الله وحاه يونيفرسك مخلوقاتك لبدا شيء midna wax la inoogu sheegayo midna aynu ka barayno sida uu shaqeynayo ayuunba masaadir ilmiya meel kale oo cilmi loogu noqdo ma jiro aqoonta waa labada midoon ima inay tay daraasad lagu sameeyo universe kan iyo siduu jiro iyo suu shaqeynayo suu yahay maca nafsaka noqoto wa fi anfusikum afala tubsirun furuuc ilmi dhamaanteedna intaasay baadhaa universe kan aynu joogno iyo suu shaqeeyo أي فروع العلم دمات بارسة إذا ما حنا مصادر العلم والكون والكتاب ويونيفرس هي كتاب كحق ربي كيمي منهجية البحث ما مركاتها قاب الله بدا سلو بارو هذا قاب ككلون تنوحي وبدن تين على دقارين نتائج علمية تجاربتي هذا هورورية وحي كان سطي وضل مر الله بدا بارستو دسي حقائق هذا اللي قاله آدنها أنت أقول بضاني ربي شريتاكي سوى الرميسانت ملاحدة دا يدد كان إلهي الرميساني هو ماينورتي جروب تاريخ دي هوري بني آدم كان أفراد بيهان شرين انت انضمنا والي وماينورتي تيل ناو تروين كأقول بضان مركي واحد كستاكو در صدان 12 to 13% بيشكتا كي واحد كستاكو در صدان الريالة تقول وحيد هذان 2 to 3% ويان that means over 90% بآدانها دولك كور كنول رميسان إلهي جريتان كيسان هذا بو حيث ويدين تلال لبضان شيء سيال الله بارا مد دراسة الكتاب هل وحالك بارا وحالك بارا التثبت من صحة نسبته إلى الله كاسو ما يساق بارا كو شيء يعني حق الربي مكيم مسا كما يمنين authenticity inteebuu authentic yahay see loo hubaa warkan inuu warkii rabbi yahay ilaahay kownkan abuuray warkiisa inuu yahay see loo hubinaya
hadduu noqdo warka rabbi dee rabbi waxaa la rumaysay inuu yahay caliim khabiir xakiim yacni sifaat ilkamaal dhammaanteed inuu leeyahay aadanaha caqligiisoo dhammida inaan waxba ka noqonaynin waxaa rabbi xaggiisa ka yimi waxaa la rumaysan yahay hadduu warkaasi warkii rabbi noqdo wuxuu abuurayna inuu isagu inooga aqoon badan yahay wuxuu inooga sheegay inay xaqiiqaan loogu noqonayntay inay tajaarib u baahnayn sidaa ogeed sidee baa loo hubin karaa inuu authentic yahay qur-aanka ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala wayaquuluuna طaaca faida barazuu min cindik bayata طaa'ifaة minhum غayra aladi taquul wallahu yaktubu ma yubayituun faacrid canhum watawakal cala allah wakafaa billahi wakiila afalaa yatadabbaruuna alqur'an walow kana min cindi غayri illahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kaiira waida jaءahum amru min alamni aw اlkhawfi adaacuu bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إلهي وحينات المامية فلا يتدبرون القرآن القرآن كان ماني أفير سنين برب إليه سبحانه وتعالى قال يعد والبوح لليه القرآن كان يدن أفير سنين ليدبروا آياته وفيرسكم محوك أنسانية إلهي وحلي ولو كان من عند غير الله إذا رب أهين هدوك إيمان لها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اسبران برين بدن بيكهل الهاي وكتاب قوبا طبعا سعودي وحوالي بغولي أفر بيج لحلا بغولي أفر تابيج وحكا ورمي النولوشة لما انتد يتضنبضا وكتاب ليمي نما وحنا قرين وحنا اخرين دل ولا قفا وحنا قرين وحنا اخرين بابوك قرين marka hore waa cajaayib waa marka labaad dunidaynu maanta ku noolay qofku hal field buu wax ka qora intuu barto kitaab ka waramaya nolosha dhamaanteed haday tahay mu'taqadka iyo waxa dambeeya iyo aakhiro iyo ilaahay jiritaankiisa ka waramaya aqaid kitaab ka waramaya taariikh dunida iyo wixii soo jiray kitaabka waramaya waxa dhici doona kitaabka waramaya dhaqaale kitaabka waramaya siyaasad kitaabka waramaya loo sharci kitaabka waramaya siyaasad iyo maamul kitaabka waramaya nolosha dhamaanteed oo hadana 604 bayja oo hadana wax iskhilaafsanaanay ku jirin asliyan buu wuxuu tilmaamaya inuu sheegana shay mucjiza iyo xagga rabbi ka yimi waxa jira professor la yiraahdo Gary Miller waa professor of mathematics and logics waa xisaabta riyaadiyadka iyo mantiqa ma logic ayuu ku ahaa professor waxaanu ahaa Christian preacher daaci diinta kiristaanka ah waa Canadian dabeetana si uu ugu adeego dacwadii uu waday ee Christianity-ga ahayd ayuu wuxuu raadiyay inuu kitaabkan baadho si uu tanaaqudaad uga helo isbarabari si uu uga helo hadduu tanaaqud la soo helo macnaheedu waxa weeye kitaabkan xagga rabbi kama iman ilaahay hadaynu idhaahno the almighty isaga wax walba og hadaynu idhaahno suurtagal ma hadee wuxuu sheegay inay isburin karaan haddii tanaaqud laga helo macnaheedu waxa weeyaan inuu xagga rabbi ka imanin wuxuu xidhay markaasi professorkaasi kitaabkaas sidii looga raadin lahaa tanaaqud wuxuu leeyahay waxa igu cajabta badan waa Toronto University waxa igu cajabta badan waxa weeyaan buu leeyahay aakhir system jaamacadka isticmaalaan buu kitaabkan leeyahay aniga igu baadha jaamacadka maxaa la isticmaalaa qof markuu qoro paper cilmiya maxaa la sameeyaa falsification test soomaha paper cilmiya marka aan researcher ama uu soo saaro kow waxa la yiraahdaa dawriyat ilmiya waa in lagu qoraa jaraa'idka cilmiga ee fanniga ka warrama marka lagu qorana waa in si rasmi ah loo faafiyaa marka dawriyada cilmiga lagu qoro si rasmi ah loo faafiyo waxay u tagaysaa waxa weeyaan fannigaasi khubaradii dunida iyo professoradii iyo jaamacadkii dunida yaalay
ayuu tagayaa ninkan baxtigiisu waxa la isku dayayaa markaa baxtigaagaasi in la naqdiyo oo la caddeeyo inaanu sax ahayn dunida oo dhan hadday caddayn kari weydo oo baxtigaaga la naqdin kari waayo wuxuu noqdaa research la ictimaado oo la yidhaahdo waa maxay falsification taskii buu ka baxay la yidhaahdo researcher hebel baa wuxuu soo kordhiyey aragtida tan ama cilmiga kan ama aqoontan ama waxaan soo kordhiyey ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قصة ما يبان لنا ليه فلسفيكيشن تسدوني دور ما يسطك أي فنات رميسنتي ما عافمات شوقة ما دقالت شوقة ما وحاد دونت شوق سمي فلسفيكيشن تست موتشي وحكم مدوات المام ينو متناقض يعني جاري ميلر قد يجب استعمالي مدو ودي dabeetana markii dambe wuxuu jeediyay lecture-kiisa caanka ee la yidhaahdo The Amazing Quran القرآن المعجز lecture la yidhahduu jeediyey uu leeyahay kitaabkani inuu waxyi saxa yahay baan rumaynaya xagga rabbi ka yimid ayaan rumaynaya aqoon-yahano badan maanta oo fieldkooda nin waliba uu yahay cidda looga dambeeyo ayaa markay baadheen waxay rumeeyeen inuu yahay kitaabkani mid xagga rabbi ka yimid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waxaa kaaga bannaan sixatu nubuwa nebi ma yahay mise maaha inaad baadhid ilaahay wuxuu ina leeyahy qul inamaa acidukum biwaaxida an taqumuu lilahi mathna wafuraada uma tatafakkaruu baa ilaahay leeyahy waxaad dadka ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inamaa acidukum biwaaxida hal wuxun baan idinku waaninayaa dadka ku dheh mid mid iyo laba isu raaca qola psychology-ga waxay idhaahdaan researchka hadday dad badani wada samaynayaan ama qadiyadda hadday dad badani marka hore negotiate gareeyaan waxay idhaahdaan waxay u badan tahay inay kala yaro waji dadbaan in laysu hambeeyo inaan laysku cabaynin in lays yaro warwareejiyo mudday qaadataa bay idhahdaan in la gaadho xaqaa'iqda laakiin qofku naftiisa qudha hadduu joogo ama cidduu ku kalsoon yahay hadday qadiyada la negotiate garaynayso si fudud buu u gaadhi karaa bay dhahaan natiijadu si daacada loogu sheegi karaa waxaan inuu dhab yahay inaanu dhab ahayn ilaahay wuxuu leeyahay mathna wa furaada balubaxa laba ama midba oo maxay qabta uma tatafakkaruu baa ilaahay leeyahay مانك استعمالا ما بصاحبكم من جنة با إله إليه سبحانه وتعالى ما هو الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام تأكذب الكاذبين وحاني كان نبي هين نبي شيخ تصومها الدنيا وانك هو بين بدنا ميسو قلدما يا الدنيا